koobkan oo ay soo qaban qaabisay dawladda hoose ee degmada Salaxley iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha heer degmo ee Salaxley waxa uu kudhigiisu ahaa wacyigelinta dhalinyarada ee ka hortagga balwadaha kaas oo kulmin doona 6 kooxood oo ka tirsan gudaha degmada Salaxley iyo sidoo kale koox ka socotay degmada Ballimataan iyo koox ka socotay deegaanka Inaguuxa oo kamid ah deegaanada hoos yimaada degmada Salaxley waxaana ka soo qayb galay munaasabad loo qabtay furitaanka koobkaasi maamulka dawladda hoose ee degmada Salaxley oo ugu horeeyaan xogayaha fulinta dawladda hoose maayirka degmada Salaxley agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada Salaxley waxaana koobkaasi loo qabtay dhalinyarada degmada Salaxley ka waramay isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Cabdicasiis Colow xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Salaxley Khalid Ibrahim Xasan maayirka degmada Salaxley Axmed Buraale xubno ganacsata iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada Salaxley kuwaas oo dhamaantood soo dhaweeyay koobkaasi waxaan maanta halkan ku faraxsanahay inaan maanta ay noo suurto gashay maamulka degmada Salaxley iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha xafiiskeeda heer degmo iskaashanaya oo agaasimiye guud ee wasaaraduna la joogo inaan maanta daafurno tartanka ku wacyigelinta kubadda cagta ee dhalinyarada ee la dagaalanka balwadda tartankana ujeedadiisu tahay in dhalinyarada ku dhaqan degmada Salaxley iyo deegaanada hoos yimaado ay kamid yihiin Ballimataan iyo Inaguuxa inaan u qabno 8 kooxood oo ka tirsan deegaanadaas oo 5 kamid ay yihiin degmada Salaxley inaan u qabno tartan ay dhalinyaradu isku dhex galaan isla markaasina aan kaga wacyigelinayno khataraha balwadaha runtii hawshan waa hawl aad u muhiim ah in laga shaqeeyo dhalinyarta horumarkooda iyo farxadooda oo waxa weeyaan dhalinyarta wada wanaagsan loo jeexo waa mid muhiim ah ciyaaruhuna waxay ka qayb qaataan caafimaadka qofka firfircoonida fikirkiisa runtii faa'iidada ciyaaraha ku jirta lama qiyaasi karo qofku intuu ku mashquul lahaa waxyaabo xun oo ku fikir lahaa inuu qaylo dhibaatooyin kale iyo waxyaabo kale oo naftiisa dib u keenay isticmaalo in la mashquuliyo oo qaab dhismeedkiisa iyo maskaxdiisa iyo fikirkiisa la dhisaa waa muhiim ka maamul degmahaana waa mas'uuliyadna saaran aanu ka shaqeyno horumarka bulshada nooc kasta tahay oo dhalinyartu koow ka tahay maadaama population-ka Soomaaliland 70% lagu cabiro inay tahay dhalinyartu waxa muhiim noqotay in awood la saaro dhalinyarada runtii hawshan isugu nimi waa hawl marka koobaad dan guuda waana hawl loo baahnaa waana runtii shaqo lagu dhiirigelinayo dhalinyarada degmada Salaxley runtii waqtiyadan dambe waxa ka socda kacaana fara badan oo dhinac walba leh haday noqoto xagga beeraha iyo haday noqoto xagga dhalinyarada iyo ciyaaraha haday noqoto xagga dawladda hoose runtii xogayo dhalinyarada oo haysto iyo maayir dhalinyarada waxaad moodaa waa degmada kaliya ee imaka ay dhalinyaro runtii kor wado sidaas daraadeed waxa loo baahan yahay in cid waliba ay jambiga qabsato ugu yaraan deyrkii xayndaabka ciyaalka kubaddu markay ka cararto waxay ku dhacaysaa dhirta halka ka soo horjeedo dadaba ka banjaraysa ciyaartii iyadoo meel fiican maraysa ayay istaagaysaa marka in ugu yaraan horta xayndaabkii la gaaro oo loo dedejiyo ayaan codsanaya maanta oo aynu joogno madashan aadka u quruxda badan ee lagu dhiirigelinayo dhalinyarta degmada Salaxley iyo degmooyinka la jaarka ah runtii kubaddu amba sports kuwa waxa ugu muhiimsan ee qofka dhalinyarta dhisa akhlaaq ahaan iyo fikir ahaanba iyo jir ahaanba iyo caafimaad ahaanba walba aanu ka shirkad ahaan anigoo ka socda shirkadda Alkaram Construction waxaanu la diyaarnahay inaanu ka shaqeyno horumarka degmada Salaxley qaybta dhiska iyo qaybta horumarinta haday noqoto dhalinyarta haday noqoto bulshada kale nooceeda iyo shaqo abuurkaba waxaan la diyaarnahay inaan ka qayb qaadano in garoonkan oo kaliya aan ku koobnaanine beerahan faraha badan inta la qorsheyn dhalinyarada garoomo badan looga jaro oo laga siiyo dadka ku soo durkay ee wada beer ka dhigay meelihii dinta guudna waxaan leenahay taay nigma yeelayno dhalinyarada ku ciyaari doonta meelo loo leersi tagay noqon doonta degmada waxaan leeyahay maamulka oo maayirkiina joogo xoghayiina joogo dadka ku soo durkaya beeraha ka sheeganaya meelihii dinta guudaha dadku ay ku nafisilaayeen taanina talaabaad ka qaadaan waxaan ballan qaadayaano ka jawaabaya ballanqaadkiisa duwaha gobolka inaanu dhawaan insha Allah u soo magacowno wakiilkii xiriirka kubadda cagta ee degmada runtii waxaanu ka shaqeyn doonaa annagoo kaashanayna wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maadaama agaasimihii guudna nagala joogo in 6 gobol iyo gabilay degmooyinkooda tartamada aanu ka qabanno sanadkii in degmadana ay mudan tahay in sanadada soo socda laga qabto tartamo horyaalla ah waxaan ku soo koobayaa
gaaroodi haddaan nahay oo dee ururka ugu weyn ee gobolka degmadan ka shaqeeya wacdiisina aanu nahay haddaan nahay gaaroodi waxa weeyaan maalinta hawsha la gudageli doono ee garoonkan wax laga qaban doono insha allahu tacaala qaybta ugu weyn baan ku qaadan doonaa waan ka qayb qaadan doonaa insha allah mar walbana waan la bogaadinaynaa runtii waa koob muhiimad weyn u leh marka dhalinyaro ahaan la eegayo bulsho ahaan runtii ciyaaruhu kaalin muhiim ay runtii bulshada ugu jiraan waxay qayb ka yihiin runtii astaan iyo runtii nabadda iyo isdhexgalka runtii bulshada sidoo kale waxay la dagaalamaan waxyaabaha runtii dhalinyarta horumarkooda dhan curyaamiya yihiin balwaduhu ay ka mid tahay runtii qabyaaladdu ay ka mid tahay wax kasta oo horumarka iyo mustaqbalka dhalinyarta runtii aan u wanaagsaneyn maadaama runtii ciyaaruhu muhiimadda ay bulshada u leeyihiin waxa muhiima runtii aynu dhiirigelinno oo runtii aan dardar gelinno ciyaaraha waxaanu annagu bilaabaynaa saan hore u sheegnay insha Allah tacaala diirka annagaa insha Allah tacaala dhisayna dhawaana waxaan bilaabi doonaa biidnillah wasaaradduna waxaan muxuu ahaa rajaynayaa inay doorkeeda insha Allah tacaala qaadato sharaf weyn oo ah inaannu maanta ka soo qayb galno tartanka kubadda cagta ee loogu magac daray wacyigelinta dhallinyarada ee balwadaha inay ka qabsoomaya magaalada Sallaxley ama degmada Sallaxley oo ay ka qayb galayaan 8 kooxood aad iyo aad bay sharaf weyn noogu tahay wasaaradahan waxa kale oo aan aad iyo aad u amaanayaa Cabdicasiis oo ah gudoomiyaha dhallinyarada ee ciyaaraha ee degmada Sallaxley iyo maayarka oo iyagu iska kaashaday hawsha fulinteeda arrinta kale ee ah baahida garoonka runtii u ballan qaaday maayarku inay deyrka wax ka qabanayaan annaguna tallaabada xigta waanu ballan qaadaynaa inaanu ku xigsiin doonno insha Allah bismillaahi alkariim dawladahaanna waanu fulinaynaa insha Allah waxaanu jecelahay inaanu intaa in ka badan qabanno waxaan iyagana aad u bogaadinayaa labada degmo ee inagu waxay ballimataan ee tartanka ka soo qayb galay